بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعن أو وناكسن دمان برشة الصوماليات ميل كستو الدنيا دان تعلد إذا كجنوشين وبرنامج كي من نما قرن أو إن كجا إيماني صومالي تي في صومالي كيبل مينيابوليس مينيسوتا. برنامج كان ولا ليال وحرمنا إن نعاون كنا شرحناه وحقوي هاي برنامج كان من نمو أما برنامج كان من نمو برنامج كان من نما قرن جي وبرنامج aan ugu talagalnay bulshada Soomaaliyeed in aan ugala dagaalano qabyaalada inaan ku dhiirigelino in aan ku midayno ummadii Soomaaliyeed meel kasta oo dunidan dacaladeeda ay ka joogeen barnaamijka midnimo ma ahan barnaamij qolana ku saabsan ama qolo dhibaato u geysanaya ama qolo amin gooni ah ataagereynaya ama ayaga maxay ta gooni u eegaya barnaamijka midnimo waxa iska leh adiga waxa iska leh aniga waxa iska leh inaga waxa iska leh ummadda Soomaaliyeed meel kasto ay dunidan dacaladeeda ka joogaan barnaamijkan waa barnaamij aan ku eegi doono oo ku dhigdhigi doono oo isugu keeni doono kala fogaantii ku dhacday ummadda Soomaaliyeed muddada aadka u dheer waxa nagala soo qayb gali doona aan casuumi doona aqoon-yahanada cilmi maado iyo cilmi diinba abwaaninta Soomaaliyeed dhalinyarada Soomaaliyeed iyo inta wadani Soomaaliyeed waliba especially kuwa ugu dhiirsan ama ugu activesan ama ugu firfircoon ee baraha maxay tahay bulshada aan ku maqalnay ama ku aragnay meel kasto ay joogaan dunidan dacaladeeda haday tahay Soomaaliya haday tahay Afrika haday everywhere ay joogaan Europe waxaanu casuumi doonaa oo nagala qayb qaadan doona bulsho fara badan waxaana rabnaa hadii aad rabto inaad barnaamijkan nagala soo qayb qaadato waxaad ogaataa waxaan la dagaalameynaa qabyaalada marka qabyaalad ma rabna inaad nagala hadasho hadii aad nagala hadlayso ha ahaato mid aad ummadda Soomaaliyeed isugu soo dhaweynayso ama aad isugu keenayso ama aad ku tirtirayso dhibaatadii hore u dhacday barnaamijkan waa mid aan rabin inuu gadaal u noqdo iyo maxay tahay waxyaabihii dhacay laakiin raba ummadda Soomaaliyeed ama bulshada Soomaaliyeed inuu hore u dhigo oo ay uga faa'iideystaan uguna maxay tahay dhiirigeliyaan horumar barnaamijkan walaalayaal hadaad rabtaan inaad nagala soo qayb qaadataan ama aad ka mid noqotaan maxay tahay dabargoynta qabyaalada maxay tahay midaynta ummadda Soomaaliyeed dhiirigelinta ummadda Soomaaliyeed ama wacyigelinta waxaad la soo xiriiri kartaan si kasta waad nagula soo xiriiri kartaan aniga midnimo jeejay baraha waxaad igala soo xiriiri kartaan Facebooka waxaad la soo xiriiri kartaan Somali TV waxaad la soo xiriiri kartaan Somali Cable Minneapolis Minnesota waxa also aad maxay tahay samayn doonaa dood waxaan samayn doonaa inaan ka jawaabno taleefanada marka barnaamijkan waa barnaamij hadda laga bilaabo ama waqtigan xaadirka laga bilaabo aad si toos ah uga la xiriiri doontaan ama uga maqli doontaan ama uga la socon doontaan TV-yada caalamiga ah Somali Cable iyo Somali TV Minneapolis Minnesota programyadan aan soo gudbin doono ama barnaamijyada aan soo gudbin doono waa only wax aan rabno ummadda Soomaaliyeed inaan isugu keeno dibna isugu soo celino jidkii dhibta lahaa qodxaha lahaa silaca lahaa rafaadka lahaa ee Soomaali ay soo martayna aan rabno inaan uga weynaano ugana gudubno si aan ugu gudubno step wanaagsan barnaamijkan waxa igala soo qayb qaadan doona ama nagala soo qayb qaadan doona abwaana sidaan hore u iriba iyo wadaniyiin Soomaaliyeed oo especially haddaba barnaamijka midnimo qaran nala shaqeeya aanu nahay team meel walba ay joogaan waxa maanta nagala qayb qaadan doona barnaamijkan walaalkeen Cabdisalaam Gentleman oo jooga France walaalkeen Cabdisalaam Gentleman wuxuu ka hadli doonaa waa wadani Soomaaliyeed oo aad u dhiiran oo aad ugu dhiiran Soomaalinimada una jecel dhulkiisa Soomaaliya iyo ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo ay dunidan dacaladeeda joogaan waa wadani ku dayasho mudan waana wadani markaan anigu eegay aniga aan wadanimadeeda ilaabay markaan arkay sida uu wadani u yahay waana abwaan also Cabdisalaam wuxuu nagala hadli doonaa oo maanta inagu soo gudbin doonaa waxbarashada iyo sidii Soomaali ay isugu soo noqon lahaydeen maadaama barnaamijkanba salkiisa iyo aasaaskiisa uu yahay sidii aan Soomaali isugu soo celin lahayn Cabdisalaam waxa uu ku bilaabay hadalkiisii Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد
وعلى آله وأصحابه أجمعين وأن سلام يا برشاد الصوماليات ميل أجوكتان با سلام كدب waxaan jeclaystay inaan bulshadeena aan ku booriyo runtii dhanka waxbarashada ama cilmiga horta Soomaali hadaynu nahay waxaan qabaa inaynu kaga bixi karno oo aynu wada jir iyo horumar ku gaari karno marka aynu aqoonteenu ay korodhoon aqoon xagga aqoonta iyo cilmiga u baadhno cilmiga waliba mudan in la bartay ee muhiimada koobaad waxa weeyaan cilmiga islaamka maadaama aynu nahay dad islaama inaynu diinteena si fiican u barano oo aynu diinteena u soo noqono ilaahay u soo noqono waa jidka qudheenu kaga bixi karno qoqobka qabyaaladda nacaybka iyo dib u dhac runtii waxbarashada maadiga iyo diiniga labaduba waa muhiim waa important rasuulkeena soo banaa calayhi salaatu wasalaam waxa uu inagu amray qofka muslimka ilaa intuu ka dhimanayo ee luxudka la dhigayo inuu waxbarasho raadsado waxbarashada runtii inay tahay waxbarashadu lagama maarmaan baad halka ka dareemaysaa markasta oo la higsado ama loo dhaqaaqo horumarna waxa haboon oo la isla tirsan yahay in waxbarashadu ay tahay muhiimada koobaad faa'iidada koobaad ee waxbarashadu leedahay waxa weeyaan qofka maskaxdiisa oo korta haddii qofka maskaxdiisa korto ama qaranka maskaxdiisa kortana runtii horumar ballaaran baa la gaadhaa maanta dunidana ku noolnahay waxa loo qaybiyaa laba qaybood duni horumartay iyo duni dib u dhacday xaqiiqadu waxa weeyaan dunida horumartay waxay horumar ku gaareen waa waxbarashada iyo aqoonta oo waxay ka gudbeen sidoo kale qabyaaladda dib u dhaca waxyaabaha haday tahay aan waxa u saamaxay inay dad kala diimaa kala midaba kala qoomiyada ay horumar sameystaan oo dal qura ku wada noolaadaan waxaan oran karaa oo aasaaska koobaad ah ama usal ah aqoonta iyo waxbarashada xitaa diinta haday u soo noqono diimuhu oo dhan waxay isku raacsan yihiin ama diinta islaamka abayna faraysa in wanaaga iyo wada noolaanshuhu uu horumar yahay oo bilaadanka oo si sharaf leh qurux badan wada noolaada ay horumar tahay waxaan oran karaa qofka farxadda koobaad ee ama sharaf uu ku noolaan karaa waxa weeyaan qofka oo wax barto oo waliba gaar ahaan diintiisa islaamka barta sidoo kalena yeesha xirfad uu ku shaqeey karo ama uu ku shaqeysan karo runtii xadaarado badan oo islaamka dunida soo maray oo horumar badan oo wanaagsan ku soo kordhiyay haday tahay dhinaca sayniska tusaale ahaan xisaabta dawada dunidana ka saaray jahli fara badan iyo mugdi fara badan xilligii sidoo kale dunidani xadaarado badan oo kala gudsan bay soo martay waqti baa jiray la oran jiray stone age oo dadku runtii dhagax iyo waxyaabo noocaas ku tirsanaa sidoo kale waqtiyo kale oo waxa jirtay dadku ay xadaarada kala gudsan soo mareen laakiin imika maanta waqti xaadirkan ku jirno xadaaradii ugu dambeysay ee la yiraahdo xadaaradii industrial revolution waxa la yiraahdo kacdoonkii warshadaha ka bilaabmay wadanka Ingiriiska waa teelaa maanta dunidu ay isku dhaafsan tahay waana tan ku boorinayo bulshada Soomaaliyeed in ay ka faa'iideysato oo ay cashar ay noqdaan tusaale ahaan wadanka la yiraahdo Japan dagaalkii labaad adduunka 1945 markii Mareykanku ku riday bomb nuclear ku riday xaqii ciidanka runtii waa laga awood batay laakiin se waxa ay ahaayeen bulsho aqoon waxa saamaxday inay 30 sano kadib ay noqdaan dalka labaad ee adduunka ugu dhaqaalaha badan waxaan u aaneynaa ama loo aaneeyaa inay tahay waxbarashada waqti xaadirkana Japan waxa la yiraahdaa qofka aan hada aqoon lahayn waa qof aan adeegsan karin runtii waxbarashadu waa wax aad iyo aad u muhiim ah waa wax bil aadanku aanay ka maarmi karin oo nolosha ay ku dhisantay waxbarashadu waxyaabaha imika ninkan
saynisyahankan reer Pakistan waxa la sheegaa wuxuu ku noolaan jiray wadanadan Yurubta wadan kamida Holland uu kana shaqeyn jiray warshadihii Holland waana ninka maanta xagan sayniska ku horumaray Hebel Khan ninka la yiraahdo Pakistanna horumariyay runtii marka bulshada Soomaaliyeed waxaan leeyahay war waxaan kaga bixi karnaa dhalinyaro rag iyo dumarba inagoo dhinaca waxbarashada u dhaqaaqna waxbarashaduna faa'iidadeed maqaal iyo qoraal iyo laguma soo koobi karo runtii mowduuc yar oo mar qura la doobay waxbarashada faa'iidadeed waa waxaan la qiyaasi karin marka bulshada Soomaaliyeed waxaan kula talinayaa waxa la barto oo dunidan waliba qoliyeenan jooga dunidan horumartay aynu kaga dayano dhinaca horumarka dadkeenina inuu ku boorinayo wadankeennii iyo bulshadeennii inay wax bartaan oo qabyaalada runtii qabyaalada waxa laga bixi karaa qofku markuu aqoon yeesho ee maskaxdiisu horumarto waliba waxbarashada runtii waxbarashada ma kala dhacdo ta diiniga oo cadaaladii haday tahay wixiiba waxa lagu gaari karaa waxbarashada waan salaamaya dhamaantiin wassalaamu calaykum allah raxmaanka hayno soo celiyo sharaftii wadankeennii Soomaaliya dhamaantiin waan salaamaya wassalaamu calaykum walaalkeen Cabdisalaan gentleman aad ayuu ugu mahadsan yahay barnaamijka quruxda badan ee uu nooga soo gudbiyay France asagoo all the way halka jooga ayuu taageeray ummadda Soomaaliyeed inuu xoog saaro sidii uu codkiisa iyo maxay ta tusaalihiisa iyo taladiisaba uu gudbin lahaa hadii aad adigu rabto inaad nala soo xiriirto ama adiguna aad tahay wadani firfircoon ama dhiiran waxaad sameyn kartaa sida walaalkeen Cabdisalaan sameeyay message-kaaga ayaad noo soo diri kartaa meel kasta oo aad joogtid hadaad baadiyaha joogto xataa geela raacisid message-kaaga waa laga maarmaan waa inaad noo soo dirtid insha Allah bilmilaah kariim walaalkeen Cabdisalaan aad baad u mahadsan tahay ku soo dhawow barnaamijka midnimo qaran oo aad kamid tahay aan kamid ahay kulligeena kamid nahay waxaanan ku leenahay insha Allah waa mar kale iyo barnaamijka oo aan ku arki doono insha Allah walaalayaal waa barnaamijka midnimo qaran oo idinkaga imaanayay Somali TV Somali Cable xagga farsamada waa Siyaad Saciid Saalax iyo Ismaaciil Muuse waxaan idinkaga tagi doonaa intaas kulanti dambe oo xiiso leh assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh